Khadar Jilaal oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland ayaa goor-dhaweed ku dhawaaqay inuu xilkaas iyo xubinnimadii xiriirkaba iska casilay. Gudoomiyaha oo qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaan faahfaahin ka bixin sababta iscasilaadiisa, hase yeeshee waxa uu sheegay in arrimo dhowr ah oo jira uu isku casilay, isla markaasina aanu doonayn iminka inuu faahfaahiyo. Hase yeeshee waxa uu hadalkiisa ku soo koobay in hawlo badan oo ay ku shaqaysan kari waayeen ay jiraan, isla markaasina uu go'aansaday inuu iskaga tago gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland. Khadar Jilaal ayaa 3 sano ee la soo dhaafay ka mid ahaa xiriirka kubadda cagta Somaliland, isagoo weliba hayay xilka gudoomiye ku-xigeenka kubadda xiriirka cagta Somaliland. Waxa uu sheegay intii ay halkaasi joogeen inay waxyaalo badan ka tareen dhinaca kubadda cagta Somaliland, isla markaasina ay horumar ballaaran gaarsiiyeen kubadda cagta Somaliland. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa ugu dambeyntii u mahad celiyay dhammaan xubnaha xiriirka ay soo wada shaqeeyeen muddada 3 sano ah, isagoona si gaar ah ugu mahad celiyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa iyaguna jiray warar la xiriira qaabka iyo weliba siyaabaha kala duwan oo u shaqeeyo xiriirku, kaas oo meelaha qaar lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo wax isdabamarin xagga ciyaaraha. Waxaana dhaliisha ugu weyn ee xiriirka kubadda cagta Somaliland iyo gudoomiyaha loo sheegay soo ifbaxday soo gabagabayntii koobkii horyaalada Somaliland ee ay ku guuleysay dowladda hoose ee Burco, taas oo la sheegay inay halkaasi ka dhaceen waxyaalo badan oo musuqmaasuq ah. Ilaa markii dambe wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu uu soo saaray warqad, isla markaasina uu guddi u saaray inay baaritaan ku sameeyaan xiriirka iyo gudoomiyaha. Iminka waxaa dhammaaday muddo xileedkii guddida xiriirka kubadda cagta Somaliland oo uu horeeyo gudoomiyuhu, waxaana la filayaa in dhowaan la qabanqaabiyo sidii loo soo dooran lahaa xubno cusub oo noqon doona xiriirka kubadda cagta Somaliland.